wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan haynin wax lacag ah kadib markii beesha caalamka oo lacag siin jirtay ay ka jaratay dowladda. Wasiirka oo waraysi lagula yeeshay baraha bulshada ayaa sheegay in laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii tagay ee 2020 wixii ka dambeeyay ay mushaaraadka ku bixin jireen lacag uga yimid Qatar iyo Sacuudiga balse lacagahaasi ay dhamaadeen bishii December 2020. sidoo kale waxa uu sheegay in wixii xilligaasi ka dambeeyay ay siyaabo kale isku xalinayeen. waxa uu si cad wasiir Beyle u sheegay in dowladda Soomaaliya ay haatan taagan tahay meeshii ugu dambeysay ee ah in aysan haynin wax lacag ah oo ay hadda joogaan isla markaana dhaqaalaha ay ka helaan gudaha dalka, waxaana ugu baaqay dadka Soomaaliyeed inay isku tashadaan. hadalka ka soo baxay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu dhawaan xumaaday xiriirka beesha caalamka iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya u dhaxeeyay kadib markii golaha shacabka ay muddo kordhin u sameeyeen hase yeeshee beesha caalamku ay arrintaasi ka soo horjeesatay. waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xilif telefishinka caalamiga ee Sooyaal Cabudwa.